7.8 milyan oo qof oo Afrikaan ah ayaa xariistay looteriga nasiibka lagu tijaabiyo ee lagu aado dalka Mareykanka. Waxaana inta badan dadka sanadkan xariista looteriga ay yihiin dhalinyaro da'doodu ay u dhaxayso 25 ilaa 35 sano. Arrinta xiisaha leh ayaa waxay tahay 50% dadkaas waxay ka soo jeedaan 3 waddan oo kaliya. Ku darso ku dhawaad 2.5 milyan oo ka mid ah dadkaas waxay ka soo jeedaan hal waddan. Kaaga daran waa dal ka mid ah dalalka ugu kheyraadka badan caalamka, kana mid ah kuwa ugu tayada sarreeya waxbarashada heerka sare ee jaamacadda. Dalkan waxa uu si gaar ah u dhoofiyaa shidaal, dahab, kookaha, alwaaxda qaaliga ah, kalluunka tuunaha, almuuniyamka dheemanka, iyo miraha abuurka dhirta, jirridda ubaxa iyo geedaha dhifka ah ee caalamka laga helo. Sidaas oo ay tahay, ku dhawaad 8% shacabkiisu waxay diyaar u yihiin inay maanta ka hijroodaan haddii markab la soo istaajiyo xeebaha dalkaas. Tiradan kor ayay u kacaysaa haddii aad ogaatid tirada dadka aqoonta iyo awoodda u leh inay internet helaan, taasi oo garab muhiim u ah xaraynta looteriga. 16% muwaadiniinta dalkaas ayaa la sheegaa inay heli karaan internetka, sidaas darteedna ay u fududahay in ay 2.5 milyan ay xariistaan looteriga, waxayna noqonaysaa 15% dadka awooda inay xariistaan looteriga. Si taas la mid ah, waxaa jira dalal kale oo Afrikaan ah oo dadka baxa ama ka hijrooda tiradooda ugu badan ay yihiin dhaqaatiir iyo software developers. Waxaa jira tiro aad u badan oo sanad walba naftooda ku biimeeya badaha caalamka, waxaana ku baxa qarash aad u badan. Haddaba su'aashu waxay tahay, nolosha ay ka ordayaan iyo midda ay u ordayaan keebaa wanaagsan? Filsan Duceysane, Bila TV, Muqdisho.